Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa niisama asxaabta qaaliga. Fadlan haddii ay tahay markaada kugu horeysaan soo booqato, fadlan furo calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino halkan. Maanta sheekadani waxaan kusoo qaadanaynaa arrimaha Bollywoodka. Dilaaga aad wada taqaanaa rugcadaaga Amitabh Bachchan ayaa maanta waxaan kusoo qaadanaynaa sheekadana maanta. Dilaagan ayaa marka uu hadlay wuxuu sheegay noloshiisa dhibaatada oo soo mar midda ugu murugta badneed ayuu ka hadlay. Dilaagan ayaa mar wuxuu galay xaalad aad u foolxun waayo filimada oo sameeyey ayaa hoos u dhac u dhacay. Kadib Dilaagan ayaa murugooday. Dilaagan ayaa ka hadlay wuxuu yidhi mar aniga iyo familkeyga aan dalxiis ku joogno Mumbai ayaan waxaan la kulmay ayuu yidhi caqabad aad u weyn. Caqabadaasoo ahayd aniga iyo familkeyga ayaa maalin waxaan isku raacnay meel dalxiis ah. Intaan dalxiiskan ku guda jirnay ayaa gaariga waxaa istaajiyey dad aad u fara badan oo taageerayaal ah. Kadibna waxay bilaabeen inay aniga agteeda imaadaan. Gaariga ayay qoorta kasoo dhiibteen. Markay gaariga qoorta kasoo dhiibteen aniga ayay aflagaadeeyeen. Waxaan aad aaga xumaaday ayuu yidhi Dilaagan maadaama ay ila socdeen waalidkeyga waayo waxay saarnaayeen gaariga gadaashiisa dambe ayay saarnaayeen oo kursiga dambe ayay ku fadhiyeen. Sidaa darteeda aflagaadada aniga lee geysta aad ayaan aaga xumaaday maalinkaas ayuu yidhi Dilaagan. Inta badan wuxuu sheegay in dadweynaha Indiya ku nool markii asiga ay ku arkaan waddooyinka Mumbai waxay istaaji jireen gaarigeyga ayagoona igu dhihi jiray hadallo aad u foolxun. Inta badan waxay i dhihi jireen kuma fiican jilinka, waa inaad iskaga tagtaa meeshan, waqtiga ayaad iskaga luminaysaa. Dilaagan ayaa sheegay in uu aad u dhibsaday hadallada ay kula hadlayaan dadka. Wuxuuna yidhi mar ayaan go'aan waxaan ku gaaray gabi ahaanba inaan iska dhaafo aflaanta sameyntooda. Ugu dambeyn Dilaagan ayaa la imaaday filimkiisa Mohabbatni ee ku jiran aktarada faraha badan oo ka mid yahay Shah Rukh Khan iyo Aishwarya Rai. Amitabh Bachchan ayaa filimkan run ahaantii aad loogu ammaanay waana filimka noloshiisa dib u soo celiyey. Amitabh Bachchan marka uu sameeyey filimkan run ahaantii taageero aad u fara badan ayuu yeeshtay. Amitabh Bachchan ayaa hadda wuxuu ka mid yahay jilayaasha aad looga jecel yahay dalka Indiya. Jilayaasha xataa aad ayay u taageeraan Amitabh Bachchan. Run ahaantii waa rugcadaaga keliya ee Indiya aadka u taageeraan. Dalka Indiya wuxuu ku leeyahay taageero aad u fara badan oo asiga aad u taageero. Dilaagan inta badan waxaa lagu taliyaa mid ka mid ah jilayaasha ugu weyn, ugu guulaha badan, uguna guuleysiga ganacsi ahaan taariikh shaneemooyinka Hindiya. Isaga oo xirfadiisa jiidmay in ka badan 50 sano waxa uu door muhiim ka ciyaaray in ka badan 200 oo filim. Bachchan waxaa inta badan lagu ammaanaa Shah of Bollywood. Superstar Khan ama si fudud Big B 80-meeyadii ayaa u horseeday agaasimaha Faransiiska Francisco Truffaut. Bachchan wuxuu helay 10 abaalmarin dhowr ah oo ay ku jiraan 6 abaalmarin aflaan iyo 16 Filmfare Awards. Amitabh Bachchan wuxuu dhashay 11 Oktoobar 1942. Shaashada wuxuu ku soo caanbaxay sanadihii 1970-meeyadii filmadii ay ka mid ahaayeen Sandar iyo Shola isagoo ku mutaystay magaca nin yar oo xanaaqsan. Xirfadiisa quruxda badan waxay geersiisay in ka badan 200 oo filim waxa uuna door weyn ku leeyahay Bollywoodka. Amitabh Bachchan la-aantiisa waxaa jiri lahay faaruq weyn oo dhanka aflaanta Hindiya ah. Bandhigiisa caanka ah iyo joogitaankiisa soo jiidashada leh ayaa xoojiyey maqaamka jilay halyay ah. Amitabh Bachchan oo sanadkani 82 jir noqday ayaa Bollywoodka siiyey filim heer sare ah oo ku kacaya $1 milyan. Wuxuuna sii wadaa dhiirigelinta jilayaasha kartidiisa iyo dadaalka uga jira fanka. Wuxuu ku biirintiisa shaneemada Hindiya waa mid aan la soo koobi karin, taas oo ka dhigaysa hal abuur run ahaan oo dhanka warshadaha Bollywoodka ah. Hadda waxaa marti ku ah barnaamijka caanka ah ee telefishinka Khan Bank. Amitabh Bachchan ayaa weli ah shakhsi la jecel yahay qulubta malaayiin taageere ee adduunka oo dhan. Kala duwanaanshaha uu leeyahay jilay ahaan iyo kartida uu leeyahay inuu la xiriiro daawadayaasha da' kasta ay yihiin ka dhigan tahay xidig aan waqti lahayn oo shaneemada Hindiya laga jecel yahay. Sheekada maanta aan kusoo qaadan jilaaga rugcadaaga Amitabh Bachchan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Fadlan haddii ay tahay markaada ku warsan soo booqato, fadlan furo calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino. Hana hilmaami inaad muuqaalkan sheer geliso aad meel dheer geesiso aad la wadaagta asxaabtaada.